haddii saqda dhexe ee habeenkii goorta aad hurdid ay baranbaro kaa dhex gasho sanka iskuna dhex maqiiqdo duleelka sanka subaxiina aad la soo kacdid adoo xoqaya wajahada ku aadan sujuudda iyo gudaha indhaha gadaashooda. laakiin dhacdadan waxay ku dhacday gabar u dhalatay waddanka India iyadoona ku reebtay walwal iyo tiiraanyo. haweeneydan 42 sano jirka ah ee u dhalatay waddanka India ayaa dareemaysay in ay wax ka dhex dhaqaaqayaan gudaha isha gadaasheeda markii ay soo kacday. kadib haweeneydii ayaa loola cararay isbitaalkii ugu dhowaa sankana looga shubay dareerayaal daawooyin ah, laakiin dhaqdhaqaaqii ay ka dhex dareemaysay gudaha isha gadaasheeda ma istaagin. kadib baaritaan kale oo lagu ceshay oo la geliyay tuubada kaamirada ku xiran tahay ayay takhaatiirtii arkeen wax aan caadi ahayn. markaan sii fiiriyay muuqaalka ayaan waxaan arkay humaag la-eg 5 sentimitir duleelka sanka dhexdiisa, waxaana dareemay inaysan caadi ahayn. kadibna waxa ay caddaatay humaagta aan arkayo inay tahay qaarka dambe ee baranbarada. saas waxaa yiri takhaatiirtii baaritaanka sameynayay. baaritaano badan iyo qalliimo kadib waxaa si nabad ah haweeneydii bannaanka looga soo saaray baranbaradii. ujeedada aan u soo qaadanay sheekadan ayaa ah in aan iska hubinno ama aan iska fiirino hoygeena, kana ilaalino meesha aan seexanayno cayayaanka oo ay ka mid tahay baranbarado.